mar labaad haddaan xasuusiyo kulankan amba kalkeenan wuxuu ku saabsan yahay waa ballaarinta adeegyada maaliyadeed ay bixiyaan hay'adaha maaliyadeed oo sanadkan targetka amba aynu xooga saarayno bangiyada iyo caymiska waxaan ku soo dhaweynayaa jaamacadda Armas oo runtii halkan nagula wadaagi doonto presentation la xiriira cilmi baaris ay ka sameeyeen mowduucan cilmi baaristaasna waxay noqon doontaa cilmi baarista salka u noqon doonta doodeena ama barnaamijkeenan waxaan jecelahay gacanta inay soo fudaydiyaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرت شرفتا قف كستانيغو مقعيسا يو ميقام كيسا كو سلامية تايم كو آدي نوغير أنو معموليا وحان كودا قري دونا علمي باريستا جامعة أردمس أي كغيب قادان يسو شركة دقالها سومالي لان أنيغا مقعي وسوهيب عبد الرحمن قهير بيبر كان هديالا كرديغو كودا قري دونا sida halkan idinka muuqataa ciwaankeenu waxa weeyaan financial products diversification in Somaliland challenges and opportunities waxa aynu ku gorfayn doonaa inkasta oo uu topican yahay mid isa saaran oo u baahan in gudaha marka loo galo uu furfurmi doono inaan bal ka hadalno marka koowaad contentiska aynu ku faaqidi doono presentation kan sida halkan idinka muuqataa waxaynu ku soo bandhigi doonaa 6 qaybood sidii usualka ahaydba waxaan doonayaa qodobka ugu horeeya inaan cadeeyo misconception ka jira kelmadda loo yaqaano financial product dadkeenu waxa ay marka la soo hadal qaado markiiba ay yiraahdaan muraabaxa iyo mudaaraba iyo mushaaraka laakiin they are different markaynu leenahay financial product waxaynu ka wadnaa waa serviceska adeegyada ay bangiyadu ama maalgeliyayaashu ay siiyaan bulshada ama ganacsi ha noqdo ama qof individual ha noqdo productska waxaa ka mid noqon karaa marka la maalgelinayo working capitalka marka la maalgelinayo guri marka la maalgelinayo gaari kuwaasaa loo yaqaanaa products laakiin muraabaxa iyo mudaaraba iyo mowdiska noocaas waxa loo yaqaanaa mowdis of financing macnaha waa waxyaabihii fudaydinayay ama waa wixii loo isticmaalayay in lagu sameeyo ama agreementka heshiiska lagu galayo maalgelinta in loo isticmaalo markaa so muhiim ma aha markaa inaynu mushaaraka iyo mudaaraba iyo waxyaabaha inaynu focuska siino laakiin muhiimaddu waxay noqonaysaa inaynu aad u faaqidno financial product laftirkiisa haddii alla ka dhigo okay sida halkan markaa inooga muuqataa financial product marka aynu ka gudubno generally financial sectorka waxa aynu garanaynaa inuu muhiimad fara badan u leeyahay dhaqaalaha waddan walba waxa uu sare u qaadayaa markaa ama aynu odhan karaynaa waa life blood waa dhiiggii uu qofku ku shaqaynayay oo kale ayuu u yahay dhaqaalaha waddanka waxa loo isticmaalayaa in lagu dhaqaajiyo maalgashiyada in shaqo abuur fara badan lagu sameeyo in growth fara badan markaa iyo inaynu isticmaalno hantideennii oo aynu si fiican u utilize garayno haddii alla ka dhigo financial productskana waan sharaxay so waxaynu u baahannahay in aynu ka hadalno diversificationku muxuu yahay in aynu kala duduno ama aynu badino financial productskeena in aynaan keliya ta maalgelin gaari iyo guri iyo waxyaabahaasuun aynaan ka hadline in aynu balgaranno maxaa hortaagan in la maalgeliyo productska long term investmentsku marka ay ka mid noqonayaan in la maalgeliyo hantidii asaasiga ahaa ee aynu lahayn resourceskeenii naturalka ahaa ganacsigeennii waxyaabahaasoo dhan markaa inaynu si fiican uga hadalno ayaa diversificationku markaa uu ka hadlaya okay financial sectorka Somaliland qaybta bankinku waxa laysankii u horeeyay la bixiyay 2013 imikana waxaynu haysanaa 5 operating banks xagga insurance-ka infancy stage buu ku jiraa isagu waxa weeyaan aad buu cusub yahay shirkadaha ka shaqeeyana waa 7 waxaynu ku arki doonaa qaybaha dambe sidoo kalena faahfaahintooda haddii alla ka dhigo wata marka maxaa keenaya ama drive gareynaya in aynu waxyaabahan baadhno financial sectorkeennii waxa uu ku jiraa stage of transition laakiin waxa ka muuqdaa in uu aad u dhutinayo ama uu u luudayo
caqabado fara badan baana laga yaabaa inay hortaagan yihiin kuwaasaynu u baahannahay inaynu baadhno waana sababta drive garaynaysa markaa inaynu researchkan samayno okay waxyaabo badan baa markaa aynu odorosi karnaa laakiin challengeska waxaynu ku arki doonaa inta paperka gudihiisa aynu ku jirno okay objectiveska markaa paperkani ama cilmi baadhistani waa marka koowaad waxaan kusoo bandhigi doonaa qaab kooban annagoo secondary data iyo analysis isku dari doona sida uu yahay current statuska financial sectorka Somaliland waxaynu eegi doonaa ama paperkani uu sidoo kale si fiican u faaqidayaa challengeska product diversificationka Somaliland hortaagan waxaynu eegi doonaa policy and legal gaps ka jira nidaamka markaa maaliyadeed marka u dambeeyana waxa ay soo bandhigaysaa markaa paperkani opportunitieska ama fursadaha inooga bannaan ama waxyaabaha aynu haysano aynu ku horumarin karayna ama waxyaabaha markaa chanceska ah okay waxaynu markaa paperku wuxuu isticmaalay methodology aad iskaga fudud waxaanu isticmaalay mixed method approach annagoo primary and secondary data both isticmaalayna waxaanu isticmaalnay 68 respondents from businesses and individual community iyo inaanu interview iyo discussions la sameynay stakeholderska financial sectorka annaga oo markaa central bank ka bilownay Somaliland Insurance Authority-ga Somaliland Banking Association-ka shanta bangi ee Somaliland insurance companies-ka iyo microfinance institutions-ka waxa inoo soo baxay markaa muxuu noqonayaa discussion-ka iyo results-ka haddii aynu galno halkan waxa ku yaala waan iska dhaafi doonaa waa qaybtii demographic-ga banking sector-ka waxa halkan aynu kusoo koobaynaa waxa weeyaan operating banks-kii mobile operatories-kii money transfer businesses-kii ama xawaaladihii microfinance-kii oo afara assets-ka bangiyada oo sanadka 2022 gaaray 463 milyan microfinance oo isaga laftirkiisu imika bilowa sharcigiisii aanu diyaar ahayn laakiin isaga laftirkiisu dadaal fiican sameeyna 16.3 milyan maalgeliyay banking products-ka waxaynu u categorize garayn karnaa laba nooc waa inaynu nidhaahno capital financing iyo working capital financing waa one way aynu ku categorize garayn karno waxyaabaha products-ka soo galaya waxa ka mid ah housing financing business financing automobile financing trade financing and so on most used product for financing mode-ka loogu badan yahay ee la isticmaalay waxa weeyaan muraabaxa xogtii aanu ka ururinay bangiyada waxay u dhaxaysaa mowdka u badan ee ay isticmaalaan inuu yahay muraabaxa 80% 90% marka muraabaxada sababta u badan ee ay bangiyadu u isticmaalayaan analysis-ka paperkana ku jira waxa weeyaan number 1 marka aanu xogta ururinay inay tahay mowdka ugu riskiga yar leh maadaama regulationskii badankoogu marka ay ku jiraan draft ama aanay diyaar ahayn qodobka labaadna waxa weeyaan muraabaxadu waxa ay waafaqaysaa demandka dadka ama baahida dadka sida bangiyada xogta aanu ka soo helnay qodobka saddexaad waxa weeyaan waa simple waana understandable qofku si fudud uu fahmi karaa agreementka ama heshiiska sidoo kalena waa shayga ugu dhow nidaamka conventionalka ama lacagaha marka lagu kala qaato okay marka halkan waxaan ku cadeynayaa figures baan horta marka koowaad saxayaa figureskaasi halkan waxay noogu yaala total finance iyo total deposits total finance-ka bangiyada ama guud ahaan nidaamka bankinka 2017 wuxuu ahaa 50 milyan 2022 waa 130 milyan waa inta ay bixiyeen ama ay finance gareeyeen laakiin halkan waxa ka muuqda depositskooga markaa 2022 waa 383 milyan ratio-da deposit ama loo yaqaano loan deposit ratio-du waxa ay tilmaamaysaa waa 35% macnaha 35% kamida intii la soo dhigtay bangiyadu dib u bixiyeen oo finance gareeyeen daytadani waxay naga anfici doontaa waxyaabaha soo socda maadaama mar kasta oo la soo hadal qaado maalgelin iyo bangiyo rate-ka markiiba markaa la sameynayo hadal fara badan iyo sensitivity fara badan ay ku jirto muraabaxa rate-ka ama profit rate-ka ay bangiyadu bixiyaan ayaa waxaanu ku sameynay analysis ama taxliilin markaa cadaalad aanu u bixinay waxaanu markii koowaad wareysanay public perception-ka dadku waxa ay ka aaminsan yihiin
marka labaad financial institutionska ayaan weydiinay argumentkooga maxaa keenaya in uu rate-kani inta noqdo maxaanad idinku ka justify garaynaysaan marka saddexaad waxaanu sameynay comparative analysis waxaanu barbar dhignay rate-ka ay bangiyadeenu markaa qaadaan raydadka markaa wadamada jaarka intii u dambeysayna waxaanu sameynay annaga ayaa analysiskii markaa soo conclude garaynay number 1 perceptionka dadku boqolkiiba 8 ama boqolkiiba 9 waxay dhahdeen very high codingkaanu sameynay very high ayuu 88% kaasi ka taagan yahay inta kalena waa high iyo markaa normal oo 1% ah okay financial institutionska argumentiskoogu waxa ay u badan yihiin in rate-kani iyaga costis fara badan oo ku soconaya waxyaabo fara badan oo default ka gala raagitaan fara badan oo deymeed iyo waxyaabahaasoo markaa ay doonayaan inay recovery ka sameeyaan in ay markaa rate-kan usoo dhigeen markaanu comparative analysis sameynay waxa soo baxay markaa rateska halkan ka muuqda waa rateska ay qaadaan bangiyada jaarku waa 2023 Djibouti oo kaliya taa 2022 ah marka anagu analysiskaanu sameynay maxaa soo baxaya waxa soo baxaya marka aanu eegnay economic statuska Somaliland waa wadan dhaqaalihiisu aad u kooban yahay waa wadan u baahan maalgelin fara badan in lagu sameeyo waa wadan resourceskiisii oo dhamiba ay abundant yihiin laakiin wax lagu dhaqaajiyo la doonayo marka aanu eegnay loan deposit ratio-da lacagta soo gashay bangiyada iyo lacagta marka ay bixiyeen markaanu labadaa eegnay waxaanu aragnay in caqabada number 1 qodobkan in rate-kani uu very high yahay ay markaa sabab weyn ku leedahay rate-kan haddii hoos loo soo dhigi lahaa ummad fara badan ayaa markaa lacagtan doonan lahayd waxa taana ku cadaynaysaa marka suuqa supply-ga laga yareeyo pricesku aad bay sare ugu kacayaan similarly itemkan la iibinaya lacagtan markaa suuqa la gelinaya ama maalgelintan la sameynayaana marka ay suuqii wax fara badan la sameyn waayo qiimaheedina sare u kacaya that is one point laakiin qodobka muhiimka u ah waxa soo dhamay waxa weeyaan regulation iska markaa bangigu isaguna markaa waxyaabo fara badan buu eegayaa in wax fara badan la sii daayo oo wax badan suuqa galaan lacag badan ay iska socoto there should be regulation markaa in regulationkiina diyaar ahaada maxaa bangiga iyo markaa ganacsigii kala xidhaya maxaa bangiga u fududeynaya inuu dadkii lacagihii oo dhan wada siiyo maxaa infrastructure ah oo aynu u baahannahay waxaasoo dhan oo markaa challengeska aynu ku arki doonno ayaa halkan markaa isagana aanu kusoo bandhignay okay haddaan ku sii socdo waxaan gudageli doonaa markaa si toosa challengeska banking sectorka Somaliland haysta markaa number 1 challenges baan halkan kusoo ururnay aad u fara badan laakiin waxaanu u bixinay serviceability and security serviceability-ga waxa looga jeedaa ama aynu u garanaynaa waa in qofka la check-gareeyo awoodda uu u leeyahay inuu maalgelin heli karo markaa in income-kiisa la check-gareeyo in la eego financial stability-ga qofka in la eego waxyaabihii hore ee lagu lahaa qofkani markaa eligible ma u yahay number 1 marka labaadna waxa weeyaan security-gii waa collateralkii iyo waxyaabihii damaanadda ahaayo dhan marka waxyaabaha caqabadaha ah ee ayna haysta inaynu products fara badan markaa inaynu sameyno meelo kala duwan la maalgeliyo caqabadaha u waaweyn haysta waxaa ka mid ah in collateralkii in la helo ay aad u adag tahay waxaynu u baahannahay inagu maalgashiyo long term ah inaynu helno maalgashiyo aad u waaweyn maalgashiyadaasi waxa ay u baahanayaan in damaanad la helo even xitaa businesskii yaryaraa dadkii individualiska ahaa dhalinyarada u badnaa in ay helaan markaa wax ay ku nafahooga ku horumariyaan ganacsiyo ku dhaqaajiyaan collateralku waa caqabad markaa horta ka mid ah qodobada markaa ugu muhiimsan ee soo qaadanay waxaa ka mid ah marka la finance garaynayo ganacsi eelmowdka la isticmaalayo tusaale ahaan oo kale mudaaraba waxyaabaha jira ee bangiyadu aadka uga noogu wargeliyeen waxaa ka mid ah information asymmetry ama asymmetric information marka caqabadaha waxa markaa meesha keenaya waxa weeyaan lama hayo in expertise labada dhinacba u dhaxeeya ay markaa sameeyaan shaygii la invest gareynayay riskigiisii in la soo assess gareeyo in la ogaado waxyaabaha future-ka shaygan ku iman kara iyo trendskiisii la soo analyze gareeyo bangigii markaa inuu dib u joogsado oo uu waxyaabo fara badan oo lacaga malaayiin lagu maalgelin lahaa fikrado fara badan oo very innovative ah waxa markaa keenaya information asymmetry qofkii fikradda hayay wuxuu hayaa aqoontii oo dhan wixii oo dhan buu og yahay laakiin bangigii laga yaabaa in waxyaabo fara badani ay markaa dib u xidhayaan kaasi ka mid yahay xagga tusaale ahaan oo kale waxyaabaha mushaarakada iyo shurko bangiyada iyo ganacsiyada iyo dadku ay noqon karaan waxyaabaha hortaagan waxaa ka mid ah markay mushaarako timaado collaboration-kiiba isaguna yar in qofka ganacsiga isagu lihi uu markaa
aanu diyaar u ahayn inay cidi kula shuraakowdo ama sometimeska warbixinaha aanu ka helayna dadka businesska ahi ay sheegayaan marka anigu aan si fiican u sheego xogtii aan hayay ganacsigayga ku saabsanayd waxa aan ka baqanayaa in ciddii i finance garaynaysay fikradaydii iyadu markaa ay si gaara u maalgashato taasina waa qodobada ka soo baxay marka beberkan aad ku arki kartaan iyadoo quotations markaa ku taala waxyaabaha inaga maqan ee challengeska waxaa ka mid ah in la utilize gareeyo ama la isticmaalo sukuukii ama waxa loo yaqaano markaa certificateskii financeka financial certificateskii okay qodobada serviceability iyo waxyaabaha soo gelaya waxaa ka mid ah traditional documentation methods bulshada iyo ganacsiyadu waxa ay isticmaalayaan nidaam aan ahayn in la tix raaci karayo markaa bangigii waxa uu doonayaa financial statement oo si fiican u yaala qofkii waxa uu isticmaalaa qaab iska traditional ama markaa manual taasi waxay keenaysaa iyaduna caqabad aan fudaydinaynin in si yaro fudud loogu maalgeliyo okay waxyaabaha ganacsiga caalamiga haysta waxaa ka mid ah LC-gii ama letter of credit-kii oo aad u adkeynaysa markaa iyaduna in la sameeyo maalgelin fara badan oo ku saabsan international trade-ka okay time-ka anigoo aad inoogu manage karay inaan hore ugu socdo legal and policy gaabiska waxaa ka mid ah foreclosure act waxa weeyaan xeerka rahanka waxa uu sheegayaa kani in uu imika ansixintiisii ay dhowdahay si fududna markaa ama si dhowna loo ansixin doono in markaa qofka wixii damaanad ahaan looga dhigay bangiga uu rahmi karo markaa ama uu hadhow sii xaraashi karo aymiin kaasi uu maqan yahay waxyaabaha maqan waxaa ka mid ah risk management regulation in la manage gareeyo riskigii ama halistii ama khatartii ku sugnayd waxaan la maalgelinaya markaa in la manage gareeyo si fiican loo asas gareeyo waxyaabahaasoo dhan markaa way naga maqan yihiin consumer protection regulation in la ilaaliyo oo qofka markaa waxyaabihii informationka ee ka maqnaa la siiyo in markaa bangiga iyo waxyaabihii haddii ay ku dhici lahaayeen xadgudub oo kale ahi loo dhexeeyo iyo microfinance regulationkii isaguna waa draft oo sharci markaa weli microfinance-ku ku shaqeeya male qodobada ugu waaweyn ee cilmi baadhista ay soo saaraysa waxaa ka mid ah lack of awareness and financial literacy waxaa qodobkani markaa uu caddayn u yahay in dadkeennu aanay ku baraarugsanayn muhiimadda markaa bangiyada iyo muhiimadda maalgelintu ay leedahayba waxyaabaha ka midka ah xogta aanu helnay waxaa ka mid ah in qofku xitaa aanu garanaynin waxaanaad doonaysa inaad maalgeliso borodhagee ayaad doonaysaa ama mawdhkeebaa kugu soo markaa adiga habboonaanaya bangiyadu sababaha muraabaxada ay u isticmaalayaan waxaa ka mid a qofkii isagoo socdo u imanayaa inuu muraabaxad doonayo laakiin laga yaabaa in mawdh kale isaga uu uga faa'iido badnaan lahaa anfac fara badanna markaa uu siin lahaa markaa badanka xogaha soo baxay waxaa ka mid ah ee bangiyada aanu weydiinaynay dadka defaulteriska ah ka warrama xogaha marka aanu helnay waxa weeyaan in dadka defaulteriska badankoogu ay markaa ku yar tahay financial literacy-ga markaa taasina waa qodob kale oo hadhow recommendationska markaa aynu ka bixin doono okay economic conditions challengeska markaa haddaan gudagalo waxa weeyaan xaaladaha dhaqaale ee caqabada ku noqonaya markaa maalgelinta ama in product diversification aynu samayno waxaa ka mid ah low income markaa bulshadeennii waxa ay ku jirtaa xaalad dhaqaalaheedii markaa u hooseeya marka aanoo isticmaalayo xogta GDP per capita dhaqaalaha Somaliland GDP-geenii oo 2.something billion ah iyo bulshadii marka la isku qaybiyo lacag waxa soo baxaysa $700 qofkii markaa in sanadka ay ku soo hagaagi karto taasi markaa waa xaalad qodobka labaad waa informal businesses aad u fara badan haddaynu markaa informality-ga businesska ka saarno la helo registrationkiisii la helo sharciyadiisii la helo tixraaciisii la helo diiwaankiisii maaliyadeed waxaasoo dhanba way fududaynayaan dollarized economiga iyo in lacagteennii markaa waddanka ay dollarkii aad u dominate garaysayna waa qodob kale oo caqabad aad u weyn ay ka jirto oo keenaysa lacagta circulate garaynaysa haddii lacagta waddankaaga ay tahay waxaa fududaanaysa in central banku awood fara badan u yeesho inuu lacagaha isagu uu si fiican u xakameeyo lacagihii si fiican loo supply gareeyo laakiin maadaama dollarkii uu dhaqaalihii waddanka aad u dhex cararay waxaa adkaanaysa maadaama aynan inagu dollarka lahayn that's one point low deposits in dadkeennii aanay qaabkay bangiyada u isticmaalayaan aanay aad u badnayn depositkuna inuu markaa aad u kooban yahay sidoo kalena qodobka waxa inoo taakiidinaya ama inoo adkaynaya bulshadeennu waa bulsho wax consume garaynaysa laakiin way adag tahay qofku in uu wax dhigto soo taasina waa qodob kale bulshooyinka caalamka isagoo qofka lacag yar ay soo galayso oo $50 xitaa ay soo galayso wuxuu ku dadaalayaa in uu markaa
inuu markaa wax ka dhigto taasina waa qodob kale qodobada markaa iyaguna keenaya in ay caqabad noqoto bangiyada shaqadoodii markaa waxyaabo fara badan u dhimay waxaa ka mid ah lender of last resortkii oo maqan markaa inaynu taana hiigsanno kuna dadaalno inaynu helno central bank manbac ama marjac loo noqon kara markaa noqon doona oo marka xilliyada crisiskoo kale ay yimaadaan si ay bangiyaduna lacagahoogii aada u fasaxaan taasina markaa waa qodob kale oo muhiim ah okay waxaa jira isaguna markaa financial infrastructure financial infrastructure-ka waxaa ka mid ah lack of credit reference bureau in aynu helno meel ay ku taalo qofkani inta bangi ee markaa uu ka qaatay lacag in la helo tixraacii markaa bangiyada oo dhan ahayn laakiin qof defaulter ah ayaa halkan tegaya markaa waxa ay noqonaysaa inay taasina keento caqabad aada u fara badan ama bangiyadu ay ka baqdaan ciday siin lahaayeen national payment system oo isagana markaa inaga maqan oo sheegaya qaabka lacaguhu markaa ay u dhex soconayaan ama bixintii lacagaha customeriska iyo markaa cidda lacagta markaa bixinaysa kala iibsanaysa in bangiyadu ay iyaga laftirkoogu wada shaqeeyaan marka anigu inaan dahabshiil bank lacag kala bixi karo anigoo lacag ay dahabshiil ii taalla inaan daarasalaam sidoo kale markaan u taga kala bixi karo waxay soo yaraynaysaa costiskan faraha badan leh caqabada inagu ah waxay soo yaraynaysaa wareega faraha badan leh in aad meel walba xaafad walba 3 branch ku yeelataa ma aha efficient sidoo kalena ma aha shay markaa costiskii inagu sii kordhinayuu noqonaya lack of swift code oo ah lacagihii caalamiga ahaa iyo qaabkii loo dirayay iminka waxaynu isticmaalaynaa inagu transparent banks in lacaga wadamo kale la sii dhex mariyo oo marka la doonayo in ganacsi caalamiya la sameeyo taasi ay markaa aada u adkaataana waa qodob isaga laftirkiisu inoo yaala lacago fara badan baa ina soo dhex mara wadamo kale markaa dhammaantood markaa inoo soo dhex marayaan financial inclusion and trust to banks aad buu isaguna u hooseeya waana caqabad aada u weyn bulshadeenna bangiyada accountska ka furan waa 230,000 oo bank account oo qaarkood laga yaabaa inay dad leeyihiin 4 ama 5 bank account markaa aad buu u yaryahay bulshada iminka su-aashii la weydiinaya haddii dadkan la weydiiyo bangi ma leedahay dadka halkan fadhiya waxay dhammaantood fahamsan yihiin faa'iidada uu leeyahay bangigu laakiin bulshadeenna 40 milyan iyo dheeraadka ah bangiyada inta isticmaashaa waa dad aada u kooban lacagihiina way idinka arkay suuqyada gubanaya mar walba lacago fara badan baa inaga yaalay kaasina waa wax la doonaya inaynu dib u saxno markaa okay waxaan gelayaa markaa insurance sector-ka oo isaguna muhiim ah oo ah qaybta kale ee bank ee financial sector-ka ama financial industry-ga waa infancy stages aan sheegay insurance authority-ga Somaliland waxa la sameeyay 20kiiba la sameeyay 2021 xeerka insurance companies act-ka waxa la sameeyay 2023 baa la ansixiyay insurance authority act baa isaguna jira oo 2021 la ansixiyay insurance authority-gii u horeeyay insurance company-gii u horeeyay waxa la sameeyay 2010 toddoba insurance company baa ka shaqeeya productska ay bixiyaan boqolkiiba 98 sida ay noo sheegeen insurance companiesku waxa weeyaan health insurance automobile-ka ku soo xiga productska kale ay bixiyaan insurance-kuna waa kuwa maariinka oo kale property-ga oo kale iyo travel insurance-ka laakiin caqabadu waa maxay sidii imika hal qof u taagay waxa weeyaan penetration rate-keenu waa 0 dadka isticmaalay about 0 aad buu u yar yahay 0.00 waxyaabo noocaas oo kale baa soo galaya marka insurance-kana waxyaabo fara badan oo faa'iido ah inaga xidhan waa inaynu isagana xalkiisi keenaa halkan baynu ku arki doonaa okay waxyaabaha haysta hadaba challenges-ka haysta insurance sector-ka qodobada u waaweyn waxaa ka mid ah socio cultural and religious factors qodobka u weyni waa cultural factors qof walba oo nu weydiino sababta aad insurance ma leedahay may sababta aad u isticmaali weydo waa maxay wuxuu lahaa anigu waxaan ku jiraa insurance kale ku jiraa marka ay timaado xaaladii markiiba qofkii reerkiisii iyo waxyaabahaas markaa halkan fadhiya soo taasi waxay keenaysaa inay ahmiyad fara badan ba yeelan weydo in insurance-kii qodobka waxaynu u baahannahay inaynu hoosta ka xariiqano religious issues baa jira bangiyada markii aanu discussion-ka si fiican ula yeelanaynay waxa soo baxay in uu jiro waxyaabo fara badan oo dawaq ah dad fara badan oo scholars dhinaca diinta ah baa waxa ay sheegayaan in insurance-kani markaa uu xaaraan yahay ama uu la mid yahay takaafulka waddankeenu inuu la mid yahay insurance-kii kale ee markaa conventional-ka ah dad fara badan baa marka intaasi ay markaa dhagahooga ku soo dhacdo insurance-kii ka didaya iyagoo aan si fiicanba ugu fiirsaninba taasina waa qodob labaad halkan xogta markaa ku taala dad fara badan baa leh I don't trust even xitaa anigu inaan insurance u tago waxaan trustkayga ii haya marka aan ku jiro markaa kii reerka
sidoo kale waxa meesha ku jira waxa weeyaan customizationkuna waa very important qofku lacagtii uu meel dhigtay shay buu kaga jiraa gaari buu kaga jiraa haddii laakiin beri toolo culays kale uu ku yimaado ama ay ku timaado inuu u baahdo in caafimaad wax laga taro oo kale gaarigii waxaa la odhanayaa horta gaarigaaga shil ha ku soo dhaco laakiin marka reerka uu u tago haddii xitaa ciddi ay goodo wuxuu odhanayaa halkan weeyaan deeto customizationkii baa taasina ay u baahan tahay the insurance companieskiina customizationka inay mar walba qofku wuxuu u imaado oo kastaba u siiyaan ama ay ugu iibiyaan ama ay kaga dulqaadaan iyadina meesha markaa kuma jirto taasina waa qodob kale legal and policy challenges in aynu siyaasadihii diyaarino caqabadaha dhinaca markaa sharciga ka jirana markaa inaynu ka qaadno low human capital waa very important qodobka inaan emphasize gareeyaan u baahanahay waxa weeyaan human capitalku ma aha oo keliya ta imika xaggii educationka ama awarenesska bulshada waa sectorka insurance-ka dhexdiisa markaa bangiyadu waxa ay insurance companiesku waxay noo sheegayeen in dadka garanaya nidaamka insurance-ka aqoonta insurance-ka ay aada u kooban tahay markaa inaynu haysano educationkii ama waxbarashadii meelihii lagu bixinayay insurance-kuna waa caqabad kale markaa insurance-ku faham fara badan buu u baahan yahay marka product la soo saarayo innovation buu u baahan yahay waa in maskax la tuujiyaa maskaxduna waxay ka soo baxaysaa qofkii waxaan bartay markaa opportunitieski markaa finally opportunitieska markaa ka bannaan inaynu product diversification samayno waxa weeyaan waxaynu haysanaa markaa nidaam aada u ballaadhan oo aynu si fiican uga faa'iidaysan karayno waa in aynu samaysano number one nidaam u dhexeeya dadka iyo bangiyada markaa qodobka koowaad ee markaa aynu hoosta ka xariiqaynaa kaa weeyaan okay nidaamka in markaa number one aynu ka bilowno potential advantage-ka ku jira trade relationska markaa wadamada jaarka aynu la nahay oo kale inaynu ka faa'iidaysano markaa xidhiidhka markaa aynu la yeelan karayno wadamada aynu jaarka nahay 110 milyan ama 20 milyan markaa in opportunity aad u weyn ay noogu jirto in aynu qaadano waxyaabaha safe and viable zoneska ah markaa eriyooyinka investmentku uu safeka yahay ee riskiga faraha badan aanay ku jirin si fiican looga soo saari karayo dadkuna ay ka faa'iidaysan karayaan riskigeeduna ay aada u kooban tahay baa aada inoogu badan inaynu ka faa'iidaysano iyadana in aynu waxyaabaha aynu qaadanna ay ka mid noqoto housing costeska iyo expensive rentiska oo aada u sarreeya in aynu uga faa'iidaysano in dowladda iyo bangiyadu ay iskaashadaan in dowladdu dhul ay la iman karto bangiyaduna markaa qiimo aada u hooseeya ay ugu maalgelin karaan bulshada especially dadka markaa civil servantska incomekooduna uu aada u hooseeyo in waxyaabaha opportunitieska aynu haysanaa ay ka mid tahay agricultureka okay waxyaabaha opportunitieska aynu haysano waxaa ka mid ah financing production wax soo saarka inaynu maalgelino agricultureka iyo markaa fisheryga waxyaabaha opportunitieska ah ee ay bangiyadu markaa aada uga faa'iidaysan karaan waxaa ka mid ah manufacturing sectorkii oo isagana markaa productska mowdiska istisnaaca iyo waxyaabaha lagu finance garayn karo opportunitieska markaa insurance-ka ka jira waa sector potentiality number one dad fara badani waxa ay markaa aad aanay u fahansanayn sectorka iyo ahamiyadiisa qodobka labaadna waxa weeyaan waxay nagaga xidhan ganacsiyo fara badan xidhiidho caalamiya ay nagaga xidhan waxay nagaga xidhan markaa attraction fara badan oo maalgashadayaala waxyaabahaasoo dhan markaa waa fursad micro insuranceku waa opportunity kale in third party car insurance la sameeyo oo caymiskii markaa gawaadhida iyo waxyaabaha la xidhiidha in dadkii ay magaalooyinka ku soo badanayaan change in life style-na uu dhacayo dad fara badani nidaamkii reerka iyo waxyaabaha ka shifti garoobayaan macnaha dependencekiisii in terms of markaynu ka hadlan qaadhaan iyo waxyaabahaas oo kale uu qofku qaadhaankiisa halkan ku darsan karo in aynu community structure-ka laftirkiisa clan basirka la samayn karayno engagement oo markaa lala xidhiidhi karo dadka caaqilada salaadiinta lala xidhiidhi karo iyaga laftirkooga insurance companieska lasoo dhexgelin karo ay isticmaali karaan iyo digital mobile moneyga oo qofku uu insurance-ka kula macaamili karo iyada oo maalin walba 1,000 shilin laga jarayo tusaale ahaan nidaamkiisa saadka ama e-dahabka oo kale okay conclusionka marka aynu sameynaynaa waxa uu yahay anigoo timeka aada u ilaalinaya in ay stadigan ama beberkani in beberkani ay iftiinka markaa ay dul saartay ama ay tooshka ku ifisay in multifaceted challenges ay face gareeyeen financial sectorka Somaliland challengeska imika aynu soo taxaynay oo dhammaan marka ay caqabado yihiin qodobka labaadna waxa weeyaan in awareness-kii dadka labada dhinacba hadday tahay bangiyada iyo hadday tahay insurance-kiiba uu aada u hooseeyo economic conditionskeenii markaa iyaguna ay saamaxaad fara badan ina siin waayeen oo iyagana aynu u baahan nahay qaab parallel ah inaynu iyagana sare u qaadno
waxyaabaha kale ee jira waxa weeyaan in insurance sector keenina markaa uu u baahan yahay in aynu aad u dhaqaajino oo aynu ka shaqayno opportunitieskii markaa aynu soo bandhignay iyo iyadoo faahfaahsanba paperka ay noogu taalo recommendationska aynu bixinaynaa markaa waxa uu noqonayaa regulatory bodyga ama central banku waa in uu marka koowaad si fiican uga warhayaa sectorka financial sectorka markaa mas-uuliyaddiisu waxay saaran tahay regulatorka dowladda oo central banka qodobada ugu muhiimsan waa in profit rate-kii waxyaabaha la isla eegaa bangiyada iyo central banku ay isla eegaan maxaa macquula maxaan macquul ahayn waa inaynu helnaa in laga wada shaqeeyo oo dowladda iyo financial institutionsku ay ka wada shaqeeyaan qaabkii loo samayn lahaa innovation hubs inaynu fikrado cusub keenno waxyaabo fara badan oo deegaankeenna markaa kusoo kordhinaya in aynu products fara badan dadka siin karno maalgelin fara badan siin karno markaa in dowladdu ay bangiyada faragelin fara badan ku samayso faragelintaasi ma aha tii negativeka ahayd waa tii positiveka ahayd markaa iyada oo mar walba national developmentka ama planiska qorshayaasha dowladeed ee horumarinta loogu talagalay iyada oo mar walba lasoo dhexgelinayo waxa ay bangiyadu finance garaynayaan in caqabadahan laga hor tago iyada oo la diyaarinayo shuruucdii iyo nidaamiyayaashii ay u baahnaayeen oo dhanba in la sameeyo waxbarashada iyo wacyigelinta bulshada in sare loo qaado in microfinance institutionsku ay aad u shaqeeyaan maadaama iyagu ay la falgalaan bulshada kuwooga markaa lacagtooda ama dakhligoogu aadka u hooseeyo ganacsiyada yaryar ee suuqa dhammaantood markaa in lala falgeliyo microfinance-ka in la isku xidho infrastructure gaabka and overcome economic challenge inaynu markaa gaabkaana meesha ka saarno inaga oo triple b-gii ama public private partnershipkii markaa isagana samaynaynaa qodobka u dambeeyaana waxa weeyaan inagoo ka faa'iidaysanayna qodobkan aynu mar walba ku faanno ee ah teknolojiyadda horumarkeeda inaynu kaga fiicannahay wadamada afrikaanka badankooga taasina markaa in si positive markaa aynu uga faa'iidaysano aad baad u mahadsantihiin waa dhammaadkii waad mahadsantihiin sida fiican aad ii dhegaysanayseen